dhaqaale xumadii ugu darayd sicir barar ilaa abaartii ugu xooganay 10 sano ee dhawaa ayuu wajahayaa dalka Iran taasoo ay dheer tahay khasaarihii darnaa ee uu dagaalkii 12 maalmood gaarsiiyay ciidanka wadankan iyo quwadda hubeed ee Jamhuuriyadda Islaamiga midaas oo Iran gaarsiisay marxalad loogu yeeray tii ugu hooseysay ee waagan dalkani wajahayo sanado cunaqabatayn dhaqaale iyo xanibaado ganacsi ah ayaa saameyntoodu haatan soo ifbaxday taasoo sababtay in qiimaha dollarka gudaha Iran gaaro halkii ugu hooseysay abid midaasoo sababtay sicir bararkii taariikhda dalkan ugu xumaa oo ay wajahayaan rayidka wadankan waxaana taasi sababtay inay dalka ka curtaan dibadbaxyo xoogan oo dawladda looga soo horjeedo kuwa oo rayidka wadanku uga camanayaan qiimaha sarreeya ee nolosha tayo xumada lacageed iyo talada hooseysa ee xukuumadda Tehran oo u muuqata inay wajahayso mid ahaan kacdoonadii shacab ee ugu xooganaa abid xaaladdu waxay gaartay heer madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian uu shacabka kacdoomay midnimo ugu baaqo madaxweynaha ayaa qoraal uu shalay baahiyay ku sheegay in xukuumaddiisu degdeg ugu howlgalayso xakamaynta xaaladda sicir barar ee wadanka ka oogsatay isagoo sheegay in gacmo kale oo gudaha ahi sidoo kale door ku leeyihiin kacdoonadan ayuu Mas'uud ku baaqay in muwaadiniintu ku kalsoonaadaan dawladooda oo uu sheegay inay goor horeba ka howlgashay nolosha adkaanaysa ee dhaqaale hooseyntu sababtay maalmaha nasasho la'aanta ah ee Iran ayaa docda kale ku soo aaday xilli la odorasayo in Israa'iil abaabulayso isku day horseedi kala duulaan hor leh oo ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga Netanyahu Israa'iil oo la kulmay Donald Trump isniintii asbuucan ayaa lagu waramay inuu Trump ugu tagay ku qancinta dagaal hor leh oo Tehran ka dhan ah Netanyahu ayaa xogtu warisay inuu laba arrimood uga guleeyahay dadejinta duulaanka cusub ee Tehran kuwa oo kala ka hortaga inay Iran dib uga kabato khasaarihii military iyo hubeed ee ka soo gaaray dagaalkii sanadkii dhamaaday iyo in Tel Aviv ay ka faa'iideysato qalalaasaha dhaqaale ee Iran haatan wajahayso taasoo ay u arkaan in wadankani maanta joogo halkii ugu hooseysay marka laga hadlayo ducaha dhaqaalaha iyo midnimada gudaha fursadahan iyadoo laga faa'iideysanayo ayuuna ra'iisul wasaaraha Yuhuuddu u arkaa in horey laga bilaabo waxa uu ugu yeeray wajiga labaad ee gulufka Iran kaas oo uu markan doonayo inaan Mareykanku sinaba uga maqnaan sida xogtu warisay kulankii dhawaa ee Trump iyo Netanyahu waxa lagu fasiray in dhamaadkiisu safkarad u muuqday madaxweynaha Mareykanku waxa uu sheegay inay leeyihiin qorshe suurtagal ah oo saamaxaya in Iran meesha laga saaro sida uu hadalka u dhigay isagoo isla goorta ku goodiyay inay Iran khariidada ka masixi doonaan haddii ay dib u abaabusho quwadeeda military. Don't forget we made the plan possible by taking out Iran. Ha iloobin waxaanu gaarnay qorshe suurtagal ah oo ah inaanu Iran ka takhalusno waxaan rajaynayaa inaan Iran dib isu dhisin waayo haddii ay dhacdo ma lahaan doono doorasho aan ahayn inaanu burburino khubaradu waxay doorasayaan in Iran haatan joogto marxaladii dhaqaale ahaan galbeedku la doonayeen marxaladaas oo ah mid Tehran ka fogeynaysa la golay imaanshaha difaac guul hoyi kara haddii ay guluf kale wajahdo